الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود يال آدي هذا يوم ما سنتين ملك استاد جوكتان. وحن هالكن كسو قادم دونا برنامج لو ما عدري دنبال برنامج كاسي أو عن كورة صندوقنا مسؤول كمدا مسؤولين تا جبهة حورين تا وقادينيا أما حسبي أونلف نقولها ده كمدا وعرب محمد آدن المسؤول كأيا وحى ما أنتم مرتين نوية هاي برنامج كدنبال سان ميديا marka hore waxaan leeyahay mudane ku soo dhawow sahan media barnaamijka dhabaal wari iyo barnaamijka TV-ga sahan aad bay u mahadsantihiin waan idinka mahadcelinayaa martaqaadkan aad maanta ku martaqaadkan barnaamijkan dhabaal aad baan runtii u xiisaynayaa inaan maanta isku wareysano barnaamijka aad ayaad u mahadsan tahay su'aasha koowaad aan rabo inaan ku weydiiyo mudane waxay tahay bal waxaad noogu warantaa xaaladda guud deegaanka Soomaalida Ogaadeniya oo runtii aad booqatay waa dhaweyto bal noogu war xaaladda guud waad mahadsantahay mar kale bismillah alxamdulillah rabbil aalamiin thumma salaatu wasalaamu ala ashrafil mursaliin ama ba'd deegaanka Soomaalida Ogaadeniya oo rabbi subhanahu wa ta'ala nasiib u siiyay sanadkii naga tagay 2019kii inaan laba jeer booqdo markii koowaad oo laba jeer wadankan runtii aad u jeclaa muddo dheerna aan maartay hawlihiisa ku soo dhex jiray aan tago sanadka horaantiisii sanadka akhirkiisii bishii November runtii waxa weeye deegaankeenu hadda waqtiga lagu jiro marxaladda maanta uu joogo waxa waqti roobo oo gugiiba ku jira oo hadda bilowday runtii alxamdulillah ilaahay maanta u sugnaatay meelo badan buu roob ka daay meelo wali si fiican gaarna way jirtaa laakiin xilli roobo oo hadda ku jira waqtigan dhanka kale dadaalo waxaa jira xanuunkan hadda adduunka saameeyay ee coronavirus ka maaragtay loogu jiro oo lagu dadaalay walow tabarta deegaankaasi xagga caafimaadka iyo maaragtay ay aad u hooseyso si guud waad ogtihiin uu deegaan uu ahaa gumaysi ka soo daalay maamulo fiican aan helin xukuumadaha soo maray hase yeeshee weli tabartiisu tallaabsanayaayo dadaalo baa jira iyo wacyigelin innaguna aan u baahnay halkan maanta fursaddaas aan ugu sheegno inay ka taxadiraan ay aad u dadaalaan insha allahu tacaala marka xaaladda guud ee waddanka waa iska caadi weeyaan leedahay roob baa ka daay maasha allah su-aasheeda labaad mudane waxay tahay waxaad warbixin guud naga siisaa xaaladda ururka ONLF maadaama aad tahay mas-uul ka mid ah golaha dhexe waad mahadsan tahay mar kale xaaladda ururka ONLF alxamdulillah aad bay ugu fiican tahay waxaad la socoteen dib ugu noqon maayo taariikh fara badan ama xooga fara badan baad ka hayay caalamku maanta ka haya ama dadka Soomaaliyeed ay ka hayaan ama deegaanka jooga ama ka maqnaadaane ururka ONLF oo ahaa urur gobonimo doon ah oo muddo dheer maaragtay gobonimo doon ahaa haddana gobonimo doon ah oo halgan hubaysan ku soo jiray muddo dheer runtiina u soo huray dhiigoodii iyo dhaacaankoodii inay ummadda Soomaalida ogaadeen inay gaarsiiyaan gobonimo laguna yaqaanay sharaf karaami iyo cizi iyo maaragtay muddo dheer maaragtay ku faani jiray inay yihiin dad Soomaaliyeed oo u damqanaya dadkooda kana diiday talisadii TPLF ee mayalka adkaa inay loodiyaan ama ay maaragtay hanjabiyaan balse cagsi ayagu TPLF hanjabiyay Soomaalida waxaan rajaynayaa in barnaamijkaasi faan uga dhageysan tahay hase yeeshee gadaashan dambe kadib markii ay siyaasadda Ethiopia furfurantay qaatay fikirka ah in ay ku sii halgamaan qaranka wadankoodii ay nabad hadda ku joogaan ku yimaadeen kuna hawlgalayaan halgankoodii muqaddaska ahaa ee gobonimo doonna sidiiba u sii wadaan waxaad ogeydeen inaan shirweyne ku qabanay goday sanadka hadda dhammaaday akhirkiisii lagu soo dhisay ururkii gabagabadii qaybihii dhisnaana ugu dambeeyay guddiga fulinta iyo golihii dhaxinta ka dhinayna maalin dhaweyd lasoo gabagabeeyey hawshaas meel fiican bay maraysaa waxaan rajaynaynaa ururkani insha allahu tacaala inuu gaadhsiiyo ummadda Soomaaliyeed himiladii uu lahaa ee awalba loo aasaasay naftooda maaragtay ugu hureen aad ay u mahadsan tahay mudane su-aasheeda saddexaad ayaa waxay tahay waxaad iyadana warbixin guud aad naga siisaa xaaladda siyaasadeed ee deegaanka xaaladda siyaasadeed deegaanka runtii waxaa loo kala qaadi karaa qaybo kala duwan maanta deegaanku hal siyaasad kama shaqeyso laakiin xukuumad baa jirta siyaasaduhu maanta waxa weeye axdaab badan baa joogta deegaanka dhowr xisbi aan dhaho laakiin ay ugu cadcad yihiin xisbiga ONLF
oo shacabku boqolkiiba 95 aan dhihi karo ay taageersan yihiin iyo xisbigan hore oo dadka maaragtay runtii dhibaato badan gaarsiiyey haddana u xoobsiibtay magac hadda ay rabaan xoogaa isku yar qariyaan oo EPP la yiraahdo haddaan xukuumadda u soo noqdo dhankeeda iyo siyaasadda xukuumadda runtii waxaa noo muuqatay jahawareer xukuumaddu waxaad moodaa xukuumad aan runtii deganayn saldhiganin in himiladii laga lahaa iyo dadka inay ku soo celiyaan nabadgelyad maxay siyaasad degan ma muuqato runtii rajo badan baan ka qabnay xukuumaddan aad baan usoo dhaweynay ka onalef ahaan markii horeete ay maaragtay meesha la keenay waynu ogeyn marxaladii waddanku uu ku jiray waxaan rajo ka qabnay in ay marxaladda maanta lagu jiro mid maaragtay ka habboon oo wax la wada qabsan karo in wax lagu qabanayo laakiin nasiib darro xoogaa waxaad moodaa hankii laga lahaa shacabka iyo ururada kaleba ay maaragtay sugayeen ama rajeynayeen inay weli meesha kasii yarbaxayso waxaan rajeynayaa inay dib ugu noqdaan oo isa saxaan insha allahu tacaala laakiin xoogaa siyaasad khalkhalkeedu muuqda baa jira oon ka digayno in ay maaragtay xukuumaddu aynan arrintaas aynan kasii dhaga adeegin ay ka fiirsadaan okay mudan aad baad mahadsan tahay marla saddexaad waxaan rabaa inaan ku weydiiyo su-aasheeda afraad waxaad faahfaahin guud aad naga siisaa ururka onalef ee aad adigu ka mid ka tahay iyo ururka EPP midkee ayaad is leedahay dadka shacabka way ka shaqeynayaan waxa weeye horta anu hadda xisbi baan maaragtay ka tirsanahay ururka onalef oo muddo dheer kusoo jiray haddana aan maaragtay mas-uuliyiintiisa ka mid ahay isma barbar dhigayo anu shaksiyan oo adu weligaa tax badan inaan isbarbar dhigto lakin anu isma barbar dhigayo oo waxa weeye nabigu sal lla alay slam wuxuu yidhi alxalaalu bayinun walxaraamu bayin wa baynahuma umuur mushtabihaat yani xalaashu waa caddahay xaaraantuna waa caddahay marka onalef inay dadka danteeda ka shaqeynayso waxaan maanta isweydiinayna ma aha waa danta shacabka si biikhtisaar oo kooban onalef baa shalayna u dadaalaysay maantana u dadaalaysa shalay usoo dagaalamaysay maantana u dadaalaysa shalay dhiiggeeda usoo hortay maantana rabtay inay maaragtay gaadhsiiso mabaadi'dii ummadda ururka siyaasiga ah iyo himilooyinkii shacabka soomaaliyeed ahaa in ay gaadhaan ilaaliyaan qiyamka ummadda soomaaliyeed sharafta ummadda soomaaliyeed iyo ciziga iyo karaamada ummadda soomaaliyeed marka onalef taa waxaan umaleya wax kula tartami karaa ma jiro sababtoo ah ruuxa usoo huray dhiiggiisii ayaa mar kasta mudan EPP waynu ogaan doonaa waxa weeye farda la isaahay maxaa la isugu faani fagaaraha la isugu keeni doonaa insha allahu tacaala laakiin waxaan rabaa intaa inaan weliga ku daro hobal oo dhaayar waaba waxaa la yidhi nin baa sheekh weydiiyey sheekhow findhicelku ma xalaal baa mise waa xaaraan sheekhii wuu yaa wuxuu horta sheegiisa aan banaanayn buu yidhi in EPP la sheego anigu hadda maba aaminsanin marka maadaama sababtoo ah ururka EPP waxaan u malaynayaa inuu ahaa ururkii BRDF ka talinayay waddanka Ethiopia 27 sano ugu dambeeyay marka magacan baa isbedelay baa isleedahay Soomaa maya runtii magacu waa isbedelay laakiin siyaasad ahaan bay isu bedeshay xataa waxaan rabaa inaan qodobka wax kaga noqdo horta EPP waxaan malaynayaa barnaamij buu u baahan si gooni nooga diyaarino oo maxay ahayd shuruucdiisii iyo constitutionkiisi baan hadda haynaa laakiin si kooban ummadda soomaaliyeed waxaad moodaa EPP inaysan fahansanayn waxaan rabaa inaan qodobka fursad u helo maanta aan wax yar fahansiiyo deegaankeennu marxalado badan aan bu soo maray ilaa waqtiga gumaysigu maaragtay bilaabay 1800skii gumaysigu la wareegay ilaa maalinka maanta ah marxalado badan mar kastana waxaa la isku dayay siyaasad jahawareersan in lagu xukumo si ayaga loo sii gumaysto marxalada wuxuu soo maray maaragtay dhargigii oo dadka maaragtay central government dictator militariga waddanka iska haysto suu doono uu ka yeelo cidda maaragtay maamulaysa loo soo magacaabo kadib Tigreegi markay meesha yimaadeen iyo TPLF waxay isku dayeen balti inay wax yar si ay dadku u yar kasbadaan federaal baan ka dhigaynaa bay dhaheen walow federaal dee wanaagsan oo xor ah oo dadku ay xor u yihiin waxooda unan ahayn haddana bal at least mid midabkooda ah yaa loo soo magacaabi jiray marka waxaa soo gaadhay in barbaajid iyo wax loo sameeyo inkastoo dee wuxuu ahaa wax dabada la hayo sidii la doonana loo bedeli karay oo maxay ahayd ninka madaxweynaha maanta intii la magacaabo beritoole la caydhinayo marka la magacaabayo unan ogeyn marka la caydhinayo unan ogeyn kadibna la xidhi jiray waxaad ogeydeen gobolkan wuxuu soo maray 13 madaxweyne muddo kooban oo 20 sano gudahooda waxaan caalamka ka dhicin weeyay mid kastana isad inta badan maqasheen xabsiga ku dambeeya ama sokor ha lagu dacweeyo sokor baxay hal la dhaho ama hal la dhaho maxay ahayd makaniisad bugubay ama wada kale uu sameeyay marka horta saas uu iska ahaa EPP marka waan soo noqonayaa EPP federaalnimadii Ethiopia way isdishay qowmiyada fara badan baa degan way islaayeen way dilaan olad baa timid marka waxa la yiri bal federal ethnic federalism
aynu waddanka ku dayno bal qowmiyadda soomaalida qowmiyadda oromada qowmiyadda axmaarada canfartu waxay ismaamulaan tigreega sidoo kale axmaarada marka barnaamijka isaga xukuumaddan hadda timid ee dowladdan timid waxay damacday in EPP-na sababta loo sameeyay ay tahay in dib loogu celiyo waa fikirkii dharginimada oo keliyata state federalism baan ka dhigaynaaba hadda leeyihin okay oo ah waddankan waa loo wada sameeya ka axmaarka gondar jooga oromayga tigreega benishugulka beelaha ay soomaaliya u sameeyeen jigjiga waxaa madaxweyne ka noqon kara haddii barnaamijka la hirgeliyo waa khatar weyn waxaa madaxweyne ka noqon kara ruux qowmiyad kale ah أحمر بقى كنا نقرأ قف كذا كنا نقرأ وإكزاكتلي وحلا إلى على حقوق الشخص قبلين لكن حقوق القومي قال ما إلى عليه حتى بقى هذا كويدي ده سلاي وحدود سكود اللاي وعلاد بقول جرستي لا بقول سنة جرستي كبرنا أكيد حيصير هدي اللي رد ما عند إدي الربع الوصول مجعبية وأرين خاصة المدة صار خطر قوي هل تسارع كلام كثير قبيل الصومالي ترى هان دولهان ودول كمان لبعض يقولون waxaa loo socdana waa khayraadkaas sidii loola wareegi lahaa wey dadkan dantiisa lagama shaqaynayo waxaa loo diyaarinayaa marka la hirgeliya xisbigan EPP in waddankan dad kale lagu soo fatihiyo sida biyihii dadkaasina ay maaragtay ka bataan tirada dadka maanta meesha joogto 80 milyan oo Ethiopian oo kale oo buuraha saalama maanta inala degan 80kaasi meel ay ku noolaadaan bay leeyihiin buuraha dhaladooda ay saaran yihiin dhulkan bannaan ee barwaaqada ah baa la rabaa in la soo dejiyo kadibna ummadda Soomaaliyeed ay noqdaan minority xaqiiqada horta ka dambaystaa wey lana yidhaahdo adoo Soomaaliya adoo Axmar adoo Oroma adoo Tigray qowmiyad cid alla cidii la doortaa dooranaysa ama la idin soo magacaabo marka arrintan EPP ummadda Soomaaliyeed ha ogaato barnaamijyo kale ka sameyn doonaa laakiin waa arrin khatarteeda leh aan runtii u fiicnayn arrintaa waan ka digi lahaa in badan Soomaalida ay maartay ka xadaran wadan aad baad maasan tahay su'aashii shanaad baa waxaan rabaa inaan wax yar ka weydiiyo waxaa jirtay in maalin dhaweyto wareysi la yeeshay TV-ga loo yaqaan Universal hoggaanka jigjiga ama kusimaha deegaanka Mustafa Maxamed Cumar marka wareysigaas khaasatan dhanka horumarinta deegaanka ayaa waxa uu sheegay in ay ka dhiseen 450 iskuul ah marka arrintaas sidee baad u aragtaa unalif ahaan ama adiga mas-uul ahaan sidee baad u aragtaa horta Soomaalida waxay tiraahdaa runtii wareysiga waan dhageystay waan daawaday wareysi ruux mas'uul ah aan ka filaynay khaasatan Mustafa oo aan runtii ahaan inaan markii siyaasadda soo dhaweynay inaan ka filaynay ma ahayn aad baan u yaabay anu shakhsiyad iyo cid ka soo dhageystay wareysi balance oo isu dheelitirana ma ahayn wareysi wuxuu ahaa yaraatay wax xaqiiqa inta badan ku salaysnayn aad bias marka dhinaca horumarinta marka soo noqdo هذا نصفه الشيء أفر بقول يكون تسكول بانك بس نمددي عن ماش جوجا سنة كأحد عقلي السليم واحد مكيني أنا وضن كواتي لا بجرب بنتي أفر بقول يكون تسكول هذا وضن ككرسي مثال هان حرنا بالأمد تتسكل عم حسابها وقايبين كل توم قول بوضن كوكي يو كوبية هذا خاص جارهان أفر بقول يكون تهدي اللوقة بيكون توم قبل كذا واحد كسر جاية 40.9 أفرتن سكول أما مركي الراوند أوف لغو سماي أفرتني كو سكول بقول كسو هاجي قياسي ما جراني يعني كو أفرتني كو سكول ماشي لا جرس قبل كذا دي هالك ولا أفرت بقول كنت لا جرس ما يرى ولا جرس لغو دربي لكن ميت تدوس خازر ضد كشعب كان ولا وريسن كرا إذا كل ريال بتموتيك تمودك ما تصير هرما وحبيجي تكجر برنامج اسمه وانا ما على يابي وحن قاعد مارت يسوي دي مرة كخاركود horta xukuumadii tan ka horeysay baa noocan u dhaqmi jirtay oo dhihi jirtay 400 baan dhisnay 500 iskuul baan dhisnay kanaan dhisnay marka waxaan u isweydiiyey wariye madaxweynuhu malaha waxa warqadii reportidii xukuumadii hore ay miiska kaga tagtay un baa loo soo keenay oo la yiri akhri ana soo maartay wax kale oo ku qiyaas hadda waan garin kari waayay marka warbixin sax ma leedahay warbixin sax ma aad baan gartay mudane weli waxaan ku dhex jirnaa wareysigii ninka la yiraahdo Mustafa waxaa jirtay iyada sideedaba maalmahan socdaaluhu ku marayay deegaanka runtiina dagaal qaawan oo maartay aaday dad badan oo la yaabeen ayaa wuxuu ku qaaday ururka ONLF marka sidee u aragtaa iyada arrintaasina way jirtaa wareysiyada waan daawaday madaxweynaha Soomaalidiisi waan la socday runtii meelo badan uu ka hadlay hadallo aan munaasab ahayn xaqiiqada aad uga fog qurux badnayn siyaasadiisa aan u fiicnayn uu ku hadlay laakiin waxaan ku soo koobayaa oo dhaahdii shaacirkii carabka ahaa
yidhi maxay ahayday malaha waxaa jirtay qoli ay hoos ka tuur lahaayeen oo maaragtay waxbay usoo tirtay markaas waxa lagu yidhi hebelow kuwii aad hoos ka tuurka lahaydeen baa wax kaa sheegay oo xumaantaada sheegay marka wuxuu jawaab fiican oo xigmadaysan buu siiyey oo uu yidhi idaa atadka madamatii min naaqisin fa hiya shahaadatun lii bianni kaamil horta xisbigan uu maanta mustafa ka mid yahay waa un xisbigii dhiigga faraha kula jira naqaanay wey oo kuwii gabdhaha kursaday dadka laayay shacabka dilay haba i yaraatee isagan baba iska bedelaa la dhihi karaa marka wax fiican maanan inta badan ka filin laakiin annagu waxaanu soo dhaweynaynay oon markasta kulahayn walaalayaalo dad walaalaynana waa la isku keen dilay tigraa iyo tblfsi aanu wada shaqayno marka waxaad moodaa wixii laga sugayey unbay horta laga filayey ay u barteen ee dhaqankooda ah unbay la yimaada marka shaacirkaasi gabaygiisa haddaan iya dib u yar noqdo beydkaas oon dadka u fasiro wuxuu yidhi hadday idin soo gaadho war warkaasoo aniga xumaan la iga sheegayo ka iga sheegayna uu yahay qolo maangaabnimo badan iyo maaragtay xilkasnimo la-aan iyo xumaan badan lagu tumayo arrintaasi waxay daliil u tahay inaan maaragtay ruux dhamaystiran oo kaamil aan ahay buu yidhi moogtay marka annagu maxay ahayd xisbigii hore dadka shacabka laayay iyo dad EPP hadda uxusuutan ay noqdaanba waxa ay sheegaani horta waa xisbi aanu awalba aanu ka filaynay xumaanna uga baranay haddana aanu ka filaynay marka wixii lagu yaqaanay unbay horta la yimaadeen dagaalkooda qaawanna waxaan leenahay hadda gacanna la isula tegi maayo afkuna waxba badan ma tarayo soomaalida waa ta tiraahda caydu nabadna way kaa geysaa colaadna waxba kaagama tarto inay caytamaan oo maanta ururka la caaya ay siyaasad sax ama adduunka maanta horumaray iyo xadaaradana laysmaba caayaba keliya waxaa lasoo bandhigaa maxaad qabatay muxuu qabtay tusoo taagsi marka dagaalkooda qaawan anu ma soo dhaweynayo laakiin waxba aada ugu sii jawaabi mayno aad iyo aad ba umahadsan tahay mudane su-aasheeda kale waxay tahay jabhadda onlf ma tahay weli urur mabaadida gobnadoonka lagu yaqaanay kusii taagan mise way ka tanasushay arrintaa iyadaa bal nooga hor waad mahadsan tahay waa su-aal aada u fiican runtii bulshaduna maalmahan aada isu weydiinayso onlf maalintii la aas-aasay ilaa maalinkaa maanta ah wax habay yaraatay mabaadideeda iska bedelay ma jiraan shalay haddii ay qori ku dagaalamaysa maanta qalin bay ku dagaalamaysaa mabaadida ururkani waxa uu ahaa ummadda shacabka soomaalida ogaadeynaya in la gaadhsiiyo fursad ay u helaan inay ayahooda kaga tashadaan calaamadda ururka ahaa qalin iyo qalin baa lagu dayay haddana qalin baa lagu dayayaa kamana tanaasuleyso dadka warxuma tashiilka iyo barnaamijkan propagandada ee xisbigan hadda uu samaynayaay waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed ha akriso xeerka ururka iyo mabaadida ururka oo cad oo qoran practicalina waad naga arki doontaan dadka u saaxiibka waxaan ka go-an ururka onlf in la gaadhsiiyo ummaddan soomaaliyed inay gaadho fursad ay sharaftooda cisigooda iyo karaamadooda ayagu ay go-aan uga gaaraan oo ayna cid kale go-aan uga gaarin xaqadtaa weeyaan marka ruux maanta isagu lasoo magacaabay ama inti lasoo qaaday la yidhi meesha maaragtay gacan kuriimsoo gacanta lagu keenay inuu dadka maanta jahawareeriyo ma aha oo uu dhaho xisbigiiba ururkiibaa ka guuray jabhaddii baa ka guurtay mabaadideedii kamaanaan guurin shalay baanaan ka guurin maantaanaan ka guurin berri baanaan ka guurayn waanu ku dhimanaynaa weliba dardaarankii ah caddu calayha binnawaajid baanu ku dhiganay goos dambeedkaan ku haysanaa mabaadidanada kamana tegayno maasha allah aad ayaad umaqsan tahay mudane su-aalihii qaybihii ugu dambeeyay ayaan soo gaarnay su-aashada sideedaad waxay tahay waxaa jira dagaalo baryaha kasoo xusboonaaday xuduudka deegaanka soomaalida ogaadeenya oo ay shacabku isku dilayaan marka arrimahaasi dagaalada in badan bay soo noqdeen marka maxaa sal u ah baad isleedahay arrimahaasi dagaaladaas iyaga waa su-aal muhiima runtii waagida markaan deegaanka tegay waxyaabaha iigu caloolxumada badnaa waxay ahayd meelo badan oo xuduuda ah oo dad walaalo ah oo wada degan oo shalay toole daaqsan jiray oo daaq wada cuni jiray oo biyaha wada cabi jiray in maanta la kala qoqobay oo islaynayeen oo qaar hubi soo haysta kuwa baangada soo haysta kuwa maxay ahaday faasas iyo tooriyo soo haysta ay jireen meelo badan baan kusoo arkay hadday noqoto maaragtay araarso galaalshe maxay ahayd birqod sheegoosh gobollo badan intaan ka maray meelahan ka arkay marka waa nasiib daro baa horta shacab islaaye haddaad aragto ogow siyaasad guracan baa meesha ku jirta shacabku sidiisuba shalay markii reemiyiga ahaayeen walaalay ahaayeen isjecel oo ayna xataa dawlad lahayn laakiin ayagii oo maanta dawlad baa jirta laleeyahay oo haddana islaynaya oo isdil intaasoo ruux baa isku dishaada meesha
arrintaasi waxay turjumaysaa oo ifinaysaa siyaasad xumada meesha ka jirta shac weliba khaasatan waxaa shaki badan iyo tuhun badan nagaga jira in waxaan la siyaasadaynayo la abuurayo oo maaragtay barnaamijka isaga dana khaasa laga leeyahay si loo helo shacabkan ayna gacanta xukuumadda uga bixin arrimahaas runtii waa nasiib darro waan ka